wuxuu ahaa kabaryeeri maqaayadeed oo macaamiisha miiska cuntada ugu geeya. maantana waa ra'iisul wasaaraha Britain. wuxuu ku soo caanamaalayday dalabka kursiga ha iskaga fadhiina kuleyl iyo qabow maxaan kuu keenaa. waa maalqabeen wuxuuna ka taajirsan yahay boqorka UK iyo boqoradii dhimatay ee Queen Elizabeth, wiilka Hindiga ee u taliya dadkii awoowayaashii gumaysan jiray. sidee isagoo saboola oo ka dhashay qoys saboola oo ka soo qaxay geeska Afrika uu madax ugu noqday boqortooyada awoodda badan ee dunida badankeeda gumaysatay. fadlan like saar muuqaalkan, haddaad noo sheer garaysana waxaan gaaraynaa malaayiin mayl. mahadsanid. guul aan loo guban lama gaaro, riyooyinkana qarow laguma rumeeyo. ninkani wuxuu soo maray nolol dhib badan iyo shaqooyin liita, balse kartidiisa ayuu kaga gudbay duruufaha waayuhu ay badeen. Rishi Sunak oo ah qofkii koobaad oon caddaan ahayn iyo hinduugii koobaad ee noqda ra'iisul wasaaraha Britain, waa mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu qanisan UK. 42 sano jirka Hindiga ayaa noqday hogaamiyihii ugu da'da yaraa waqtigan casriga, waana kii saddexaad wax ka yar 2 bilood. wuxuuna talada la wareegay mid ka mid ah waayihii ugu qallafsanaa ee taariikhda siyaasadda Ingiriiska. Rishi Sunak adaygiisa iyo go'aan qaadashadiisa waxa saameyn ku leh qaaradda Afrika. waxa iska dhalay waalidiin Hindiya oo ka soo haajiray bariga Afrika. isna wuxuu ku dhashay magaalada Southampton ee dalka Ingiriiska. labadiisa waalid waa Hindu Punjabiya. aabihii waa Yashvir Sunak, wuxuuna gumaysigii ka hor ku dhashay dalka Kenya, halka hooyadii Usha Sunak ay ku dhalatay dalka Tanzania ka hor intaysan 60meeyadii u haajirin magaalada Southampton ee cariga Britain. inuu ahaa kabaryeeri maqaayadeed ayaa ka dhigaysa mid cajiib ah. wuxuu qirtay inay noloshiisa asaas u tahay maqaayadda Kudi Brazari oo uu leeyahay ganacsadaha Hindiga ee Kudimiya, kaasoo qaraabo la ah qoyska ra'iisul wasaaraha ee Punjabiyiinta. wuxuu ahaa qofka loogu jecel yahay iyo kan ugu firfircoon kabaryeeriyada maqaayadda, taasoo ilaa hadda ku taal xeebta koonfureed ee Southampton. wuxuu kaloo u xil saarnaa nadiifinta miisaska marka ay macaamiishu wax ku cunaan. haddana wuxuu u arkayay fursad nololeed oo uu yoolkiisa ku xaqiijin karo. mulkiilaha maqaayadda Kudi Brazari wuxuu sheegay in ra'iisul wasaare Rishi Sunak uu leeyahay dabeecad naadir ah, taasoo ah inuu ahaa nin furfuran oo jecel inuu dadka la hadlo lana kaftamo macaamiisha marka ay maqaayadda ka adeeganayaan. wuxuu sheegay muddadii uu ka shaqaynayay maqaayaddiisa inuu ahaa khabiir ku wanaagsan xisaabinta biilasha macaamiisha. wuxuu ku barbaaray waxna ku bartay magaalada Southampton, isagoo ka qalin jabiyey jaamacadda Oxford. waagii uu heerka labaad ka dhiganayay jaamacadda Stanford ayay isbarteen xaaskiisa Akshata Murthy, mid ka mid ah haweenka ugu qanisan Britain. waxa uu maal adduun helay maalintii uu guursaday gabadha bilyaneerka Hindiga ee Narayan Murthy. Akshata Murthy iyo aabaheed ayaa wadaaga shirkadda IT-ga Hindiya ee loo yaqaan Infosys. waa ninka ugu taajirsan xubnaha aqalka baarlamaanka Britain. hantidiisu waa 730 milyan oo pound. marka lagu daro lacagta xaaskiisu waa in ka badan hantida boqor Charles ka saddexaad oo lagu qiyaasay 600 milyan oo pound. hogaamiyaha xisbiga Conservative-ka iyo ra'iisul wasaaraha UK Rishi Sunak wuxuu leeyahay 4 guri oo ku baahsan adduunka oo dhan, kuwaasoo lagu qiimeeyo in ka badan 15 milyan oo pound. wargelin muhiima. bishaaro Soomaaliyey, qof walba ku nool dalkeena hooyo ama Canada, Mareykanka, Yurub, Asia ama Afrika inteeda kale, waxaan idiin haynaa fursad ganacsi oo ay idiin soo bandhigayso shirkadda weyn ee laga leeyahay waddanka Mareykanka ee Forever Living. haddaba ma kugu habboon yahay ganacsigani? fadlan isweydii su'aalahan. ma tahay qof shaqeeya laakiin dhaqaalaha soo gala uusan ku filayn? ma tahay hooyo jecel inay shaqaysato iyadoo ubadkeeda la joogta gurigeeda? ma tahay qof ku haminaya inuu ganacsi sameeyo laakiin duruufuhu ay u diideen? shirkaddani waxay ku haysaa fursad ganacsi oo aad dhaqaale aada u kooban ku bilaabi karto. inaad ganacsigan bilowdo kuma xirra meeshaad joogto, waayo adduunkao dhan ayuu xarumo ku leeyahay sida North America, Yurub, Aasiya, Afrika iyo waddankeenii hooyo. dhaqaalaha ugu fiican ee aad ku samayn karto dalabka ugu horeeya waa $398. waa markaad joogto Soomaaliya. haddii aad joogto waqooyiga Amerikana $450 ayaad ku bilaabi kartaa ganacsigaaga. diiwaangelintu waa lacag la'aan, waxaase qasaba inaad haysato dhaqaale yar ee aad ku dalban doonto badeecadaada.
manager Cusmaan wuxuu ku dhex yeeshay shirkadda Forever Living ganacsiga ugu ballaaran Soomaalida dhexdeeda, wuxuuna caawiyay dad badan oo Soomaaliyeed kuwaas soo gaaray isku filnaansho maaliyadeed isagoo ku mutaystay abaalmarino waaweyn oo qaali ah. haddaba haddii ay ka go'an tahay oo tahay qof mas'uul ah oo aamin ah, daacada doonaya inuu shaqaysto, awoodna u leh inuu dalab sameeyo, fadlan wac WhatsApp number +1 41 65 79 80 53.